haddaba Soomaali badan ayaa ku jirta ganacsiyo badan oo kala duwan. Ganacsiyadaas ayaa waxa ay kala leeyihiin muhiimado badan, waxaana la ogaadaa marka ay soo food saarto xaalad culus badanaba. Haddaba xawilaadaha Soomaalida muhiimadda ay u leeyihiin dadka iyo baahida loo qabo waxaa si weyn loo ogaaday iminka markii cudurkan coronavirus uu ku faafay dunida. weliba uu saameeyay dadkii lacagaha diri jiray iyo dadkii ay u diri jireen intaba oo xawilaadihu adeegii ay u qaban jireen bulshada ay xadideen. Cabdicasiis Sugulle waa gudoomiyaha ururka xawilaadaha Soomaalida, Somali American Money Services Association. waxa uu marti inoogu yahay barnaamijkan oo kooban waxaynu ku weydiinaynaa su'aalo dabcan aad idinkuba isweydiinaysaan. Cabdicasiis Sugulle waad ogtahay xawilaadaha waxa haystay dhibaatooyin aad u fara badan markii horeba. haddana waxa ugu sii darsamay cudurkan coronavirus. dadka qaar ayaa waxa ay isweydiinayaan sharciyada ganacsi ee xawilaadahan. maxaa ugu jawaabi lahayd? bismillaah, alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. horta waa su'aal muhiim waaye runtii. sababta runtii ay muddo dheer oo hadda laga joogo I think inay 7 sano 8 sano tahay ayaa waxa dhacay ka bacdi 9/11 ka bacdi sharciyo fara badan runtii dowladda Mareykanka soo saartay dhinaca financialka BSA anti-money laundering anti-terrorism finance arrimo noocaas soo baxay. taas waxay sababtay runtii qof alla qofkii lacag ka shaqeeya oo arrin lacageed wada in dowladda aad loo firiyo, bangiyada aad u firiyaan. isla markaana bangiyada laftoodii baa waxay pressure la saaray oo ah mataqaan lacagaha baxaya iyo meesha aadayaan iyo wax kasta waa inaan idinka mas'uulka ah. waxay ku kaliftay marka iyaga intay la shaqeyn lahaayeen MSP-yada ama waxa loo yaqaan xawilaadda Soomaalida in ay runtii ay iska fogeeyaan oo ay isticmaalaan yani hab ah inayna la shaqeyn completely faraka qaada. taas waxay keentay pressure weyn runtii oo ah in ay khaasatan Soomaalida Somali MSPs inay bangi la'aan ay ku dhacdo, lacagihii dadka loo diri jiray ay dhibaato ku timaado, business badan oo kamid ay ka baxaan suuqa ka baxaan. taas ayaa kaliftay. laakiin business waa business legitimate oo runtii sharciyeysan, waddanka sharciyeysan oo waliba sharciyeyntiisa ka sii daran tahay businessyada caadiga ah. oo marka tagtid company-ga aad ka soo register mataqaan Secretary of State-ka xawilaadda waxa u dheer ama MSP waxa u dheer inay sii laysan kale oo kaas ka sii dhib badan oo state kasta aad ka qaadanayso aad sii marto oo runtii aad u dheer. marka waa business runtii yani sharciyeysan, laakiin dhibaatada guud aan ku sheegay dowladda federaalka khaasatan ay soo saartay sharciyada ayaa runtii dib weyn u geystay. gartay bangiyadu maxay u diidan yihiin inay la shaqeeyaan xawilaadaha? bangiyada iyagu waxay ka dhigteen runtii markaan la hadlo waxay noo sheegaan yani pressure badan oo ka saaran qoladan agencies-ka oo OCC qolo la yidhaaho, qolooyinkan auditorska ah oo dhinaca federaalka ah ayaa imanaya bangiga waxaa laga yaabaa in ganaax weyn lagu dhifto ama laga yaaba in dhibaato badan loo geysto. marka bangiga wuxuu isleeyahay inta aad waqti ku dhuminaysid barnaamijkan lacagta kaa sugan ay yar tahay maybe waxay fiirinayaan faa'iidada mugta. marka waxaa laga yaabaa inay yidhaahaan inta aan la shaqeyn lahaa business noocaas oo riskiga lah oo laga fikirayo weliba laga baqayo waxa u badan waa terrorism iyo wax noocaas. bangiga marka wuxuu isleeyahay reputationkiisii iyo magaciisii iyo businesskii wuxuu istusayaan inaan la shaqeyn. waxaa kaloo meesha ku jira bangiga laftiisa dadka xataa mas-uuliyiinta waaweyn inay xataa ganax uga imanayso oo naftooda u baqayaan. marka waxyaabahaas runtii waxay keenaan inay macnaha MSP-yadaas khaasatan yani runtii dadka Afrikaanka oo Soomaalida ah waxa laga yaabaa meelaha Latin America ama meelaha kale oo Europe markay lacag u dirayaan inay ka yani fududahay in helaan, inkastoo guud ahaan ay saameysay dhibaatadu yani dadka MSP-da dhan, laakiin haddana Soomaalidana dadka u hooseeyaan runtii dhibta ku dhacday. sababta waxaa lagaga shaksan yahay waddankaaga waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo arrimahan argagixisada Middle East hadday noqoto ama Africa noqoto. markay arkaan dhulkaas siyaasadna waa iska ku jirtaa meesha oo runtii ah dhibaatooyinka markay fiiriyaan waxaa laga yaabaa Mareykanka bangiga u arko inaanay mataqaan ahayn meel lala shaqeyn karo oo naftooda u baqayaan. ganacsigan xawilaadaha sidee buu u saameeyay cudurkan coronavirus ee isu socodkii dunida oo dhan ragaadiyay? wuxuu u saameeyay lacagtii marka la diri jiray waxa weli istaageen. adduunka waa la socotaa wax soconaya male. marka waxay noqotay lacagtii halka in lagu hayo lacag badan marka ma hayn kartid oo riski baa iska jira. dadka lacagta oo macnaha si u shaqeyso xawlayaashu waxa weeye dadka lacagta si loo sii bixiya aaw marka lacag dirto lacagtaas bari waad haysataa lacagtiina halkay taalaa wali. marka qolada lacagta bixisa baan maadaama in waxba lacagna helin ma bixin karaan, marka waa inay arrinta hakiyaan.
marka waan shiray boorkan soo nimi qoladii boorkan waa soo nimi waxaan runtii isla garanay in lacagta la yareeyo macnaha volume-kii inaanu badan lacag saddex dadka loo diro waxyaabihii necessary-ga ama waxyaaba daruuriga ahaa qofka biilkiisa diri jiray 500 inuu 200 diro oo laga diro marka lacag waxa la geeyay 300 500 iyo wixii ka hooseeya bishii Ramadaan ee barakaysnayd waa xilli dad badan ay heeladooda u diri jireen lacag badan waa xilli dad badan ay sadaqaysan jireen dad Afrika jooga masaakiin ay ku sadaqaysan jireen wax badan Ramadaanadii hore uusan jirin coronavirus iyo Ramadaankan sidee bay u kala duwanaanayaan oo Ramadaankan uu saameeyay cudurkan COVID-19 runtii saameyn weyn bay ku yeelanaysaa si hadda ku socda hawsha hadda wax iska bedelin oo aad ogtahay haddana cid ka warhaysa cudurkan iyo waqtigu qaadan doono iyo inta socda lama yaqaan waa arrin runtii aad u dhib badan waaye saameyn weyn bay ku yeelanaysaa because haddii aan wax furfurmin lacagtu way sii yaraanaysaa waxa laga yaabaa waqti in la gaaro mataqaanaa dadka waxba la diri karinba oo hawlayaasha iyo maybe qaar dhowr ay soo haraan oo pressure iyaga laftooda ku dhaco marka dib weyn bay u keenaysaa waxaan rajaynaynaa haddii mataqaanaa ay maybe next to labada usbuuc soo socda ama 3 usbuuc inuu xun furmaan oo mataqaanaa dadka la tegi karo wadanadii mataqaanaa dubiyo kale ay furanta diyaaradii ay furmaan waxyaabo badan ay isbedelaan bal at least 2 weeks ka u dambeeya Ramadaan haddii ay wax furmaan taas rajaynayna insha Allah guud ahaan xawilaaduhu Soomaaliya faa'iido intee la eg ayay u leeyihiin wallahi waxaan ognahay horta xawilaadda waa arrin muhiim waaye waa waxaan ku magacaabnaa noloshii waa lifeline-kii waddanka Soomaaliya khaasatan iyo wadanada yani runtii iska dhaqaalaha yar oo dhibto hayso Soomaaliya ogtahay yani boqolkiiba 45 waxa la yiraahdaa GDP-ga waxa weeyaan Soomaaliya waa xawilaad ku timaada lacagaha la diro oo mataqaanaa remittances-ka marka ilaa lacag 1.6 1.5 billion baa sanadkii gala oo dibadda ka yimaada lacagta inta badan waxay ka timaadaa Mareykanka marka waa dareemi karaa dadka noloshooda waxay ku xiran tahay inta badan yani nolosha iskuulada carruurta la geeyo guryahooda kirada cuntadooda yani waxay ka timaadaa dibadda waxaana runtii hawshaas facilitate gareeya ama gargaarka yani hawsha wada waa xawiladaasha waa marka Soomaaliya runtii waa kama maaranto arrintan waana arrin runtii dhibaato weyn ka iman karto haddii ay dhibtan sii socoto oo ay sidaa ku jirto waxay iman doontaa yani dadka inay waxyaabihii yani basic noloshooda ay ka adkaato dabcan waxaad tihiin guddigaas oo ka shaqeeya arrimaha xawilaadahana waxaa haysta culays badan ma isku daydeen in aad dadka educate garaysaan oo la socodsiisaan culayska jiro sidii loogu soo wada istaagi lahaa ilaan ganacsi kaliya ma ahan ee waa sidoo kale dan caam ah oo dadkoo dhan u wada taala marka dadkan Mareykanka ee sharciyada inta kale ee codeeya ee codkooda la maqli kara hadday isku duubnaadaan sidii isugu soo duubnaan lahaayeen oo dadaalkan ay hal meel u soo wada istaagi lahaayeen ma isku daydeen inaad dadka aad bartaan arrintaas iyo muhiimadaas aad ku baraarujisaan والله qorshaha waa nagu jirtaa runtii waana ka hadalay wax badan runtii laakiin dhibta jirta waxa weeye Soomaalida dadkeena waan yani business-da xawlaadu waa business waa private businesses dadka qaarkood ma arkaan wax oo mataqaan yani caama oo dadku ay wadaagaan runtii laakiin waa business runtii private sax laakiin maslaxad guud oo ka shaqeynaya marka haddii waxa maslaxada guud ay ka shaqeynayaan waxa fiican in la taageero oo leaderska mataqaan community leaderska iyo dadka badan ay fahmaan in ay arrintan muhiim tahay dhinaca kale waa laga yaabaa annaga inaan ka gaabina anagu lafteena oo aanan si fiican u educate garayn dadkii iyo waxay tahay oo runtii nala fariisan oo aanan ka dhaadhicin arrimahan inay nala garab galaan oo runtii nala shaqeeyaan taana waa ku dadaalana xog baan saari doonaa insha Allah daawadayaal inta barnaamijkan oo kale aynu ku kulmayna hawada waa ano Maxamuud Dulyadayna iyo weliba soo saaridii Xuseen Fawzi intaas ayuuna barnaamijkeena ku egyahay fi amaanillah wa salaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh